بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمانتنا داونيس إلهي سبحانه وتعالى خير دين سيو. وحا برنامجكي ولي أصعد رمضان كأهمانت وأمانيت تونات بشي واصعدة إلهي سبحانه وتعالى نقدر بشي دتك دم استراي. مركا رسولك صلى الله عليه وسلم حديث كان وحديث عظيم وحاول صحابة مركز تو رسولك كفا إليستا مركا لفا إيستانبا سؤالا ويدينا مركا رسولك نين صحابي انتو إمام عبد الله بن مسعود يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله جل وعلا عملك إلهي سبحانه وتعالى وآد أجعلي هاي مركز رسولك صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها صلاة إنا قفك وقتيس وكنت مركا واحد كنت سنة مركا إنا قفكم مسلم كأ وقتك الصلاة إنه أسير إلى اليوم مركا وقتك الصلاة قالوا وقتك سوء اللي قلت لك عليه إنه كتكتب مركا صحوده مركا سؤالك كلو ويدي وحده ثم أي كي حد وجع لها مركا صحوده بر الوالدين إنا أديك والد هذا بار ولقطه كدب حد وحده أي ثم ماذا يا رسول الله وحده مركا الجهاد في سبيل الله waxaad ogaataa waxay ilaahay jecel yahay waa afar qodob aan ku koobaynaa ilaahay wuxuu jecel yahay ilaahay wuxuu jecel yahay meel makaan uu jecel yahay mis zaman waqti uu jecel yahay mis sifo uu jecel yahay mis qof oo shakhs uu jecel yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala jecelka ilaahay afartaas ma ka baxo marka waxa way makaan meel oo ilaahay jecel yahay muxuu dhahay marka rasuulku sallallahu alayhi wasallam oo makaan laga soo saaray wuxuu istaagay meel oo dhahay haswara oo asiga saas ma ku fiirinay rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay wallahi inni a'lamu annaka ahabbu biqaa ila allah jalla wa ala lawla ahluka akhrajuni lama kharajt أنا وأجه إن أذيك ماشي أو إلهي وجعل بدن أو مكانك إلهي وجعل بدن إنه مكان هاي لكن أهل هذا يقوم كذا ذاتك ماشي الدجال يقول صوصار مركز هدو يقول صوصار لهنا ما كبح لهنا مقالة بس مركز وقت جنا زمنك رسولك صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله جل وعلا من هذه الأيام يعني معلمها أو إلهي وجعل وأشر ذو الحجة وتونك ذو الحجة يتونك وجدا برمضان إلهي سبحانه وتعالى ونجعلها marka kan saddexaad wuxuu yahay sifada oo ilaahay jecel yahay ilaahay wuxuu jecel yahay dadka muttaqiinka ilaahay ka cabsada dadka sabr badan ilaahay wuxuu jecel yahay dadka muxsiniinta iyo dadka ihsaanka oo dadka u falaa ilaahay wuxuu jecel yahay dadkii oo markasto wayse qaadanayeen mutatahhiriin ilaahayna wuxuu jecel yahay waa sifoyaal badan oo dhan ilaahay jecel yahay dadka mutasaddiqiin oo sadaqaystaan sadaqa badan ilaahay wuxuu jecel yahay marka kan afaraad waxa way shakhs bi'ayni rasuulku markuu dhahay la uutiyana raayata bari waxaan siina raayada qofka ilaahay ugu jecel qofka ilaahay jecel yahay markaas wuxuu dhahay Ali ibn Abi Talib marka dadka ilaahay jecel waa dad fara badan laakiin xadiidkan wuxuu ku sheegay Ali ibn Abi Talib marka noqo qofka ilaahay jeclaanay oo salaad waqtigiisa ilaalinay ku duko wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh قلبي ليتبتل صيام الدعاء الصلاة بشهر مزاياه أكمل تفوق الشهور سواه